حكلون قريب كقادنيني سال سعطان با اسمها عصب لو ديسيو madaxtooyada anaga wixii gaadiida iyo wixii caynka wixii kalena ay ciidanka qaranku ay dhisayeen waxaanu habeenaanu diyaarinay si magaalada koonayaasheeda loo kala geeyo golihiina guurtidu dhulkii ay yeelanayeen oo la koonfurta magaalada loogu talagalay bariga magaaladana in laga dhigo muxuu ahaa sidii madaxweynuhu soo amray bariga magaaladana in laga dhigo xarunta baarlamaanka si ay saddexda gole madaxtooyadii oo meela golii guurtida oo meela iyo golihii baarlamaanka oo meela loogu sameeyo taana waan u diyaarinay muxuu ahaa dhulkii ay la dejinayay oo labada koonee kale ee magaalada kala ah runtii markaan ka warano xaaladdeeda anaga imika dawladda hoos ahaan ee socota sanadkan 2019 waxaanu focuska saarnay dhowr meelood oo kala ah inaanu debdemiskii baahino oonu saddex degmo ka dhisna halkii uu meel qura ka ahaa caasimadda oo ka ahaa meesha qura santarka iskuulka maxamuud axmed cali waan ka dhisnay koodbuur waan ka dhisnay wuxuu ahaa axmed macalin haaruna qaybtii koowaad ayaanu dhisnay halka maslaka agtiisa marka magaalada in koona kastaba looga gurman karo hadda oo beeskaasi uu sameeyo waxa kale oo muhiimadda saarnay wadooyinkii anagoo dadka u go'aaminay sanadkan golaha deegaanku markuu shaqay miisaaniyadda uu sameynayay 40% inay dadku la yimaadaan 60% dawladda hoose ay bixiso si wadooyinka roogga aynu naqaan looga dhigo marka imka wadooyinna way dhamaadeen qaarna gacantaan ku haynaa daamu dalka daamku ka kala go'an yahay intaas shaqadeeda iraakisay wadooyinka noo yaalana dadka kalena waxaan ugu baaqnay inay ka qayb qaataan waatii markii hore abaar ay nagu dhaceen ay nagu soo noqnoqdeen xoolihii badan baa magaalada soo gashay intaasi koonayaasha loogu hayo waxaanu sameynay mashruuc xoolaha dooga lagu abuurayo bilay dhexdii mashaariicda dee hadda socda adduunyada oo ah iminka bilowgiisa uu bilow yahay oo hay'adda WFP-na hay'adda FAO-na ay naga caawinayso kaasoo la sameynayo in lagu beero container gudihii doogiisi muddo gaaban xoolihii loo siin karayo amba kuwa seylada jooga ahaadaan amba kuwan kale ahaadaan ee caraf loo siinayo waxaa jirta sariibad baan dhisnay sanadkan oo imika dhamaatay insha Allah taala labada wiig soo socdaan la furi doona waxaa jira mashruuc weyn oo ballaaran oo dib u habeynta maamulka ah mashruucaasi oo ah dib u habeynta maamulka iyo faylasha sharciyeyntoodii iyo GIS-ka ah inaanu bilownay oo qolan nagu maalgelinaysay mashruucaasi oo imika socda dhaatadiisii waxa laga yaabaa habraaca uu soo raaca faylku markuu degmo ka soo bilaabmo iyo khaladaadka dhici jiray ee ah inuu geometry wax soo khaldo amba cabir soo khaldo sidii looga bogsan lahaa sidii magaalada gebigeedana dhaatada muxuu ahaa macluumaadkeeda imika dadkeena inta aqallisan qof walba wuxuu haystaa faylkuna wuxuu ka hadlaa marka aqalka la dhiso intaan aqalka la dhisin in liitarka gaadhin ayaa faylka loogu ogolaaday dhulka ilaa intaasuu shaqeeya way kooban yihiin inta qof ee mulkiyad samaysatay faylku hadduu liitarka dhaafo waxa weeye faylku ma shaqeynayo waxa weeyaan war lahaanshihi dhulku ka hadlaya ee mulkiyad imikana inaanu qaab mulkiyadeed oo qof walba wixiisa la sugo oo fariisa iyo muxuu ahaa iyo dhaatadiisa oo rasmiya si aan hanti la isugu qabsan hantidii dhaxal gashana ay u gasho qofkii waalidka ahaa si loo dhaxo si magaalada aan ugu sameyno wax dhaba record dhaba oo u hadha aan u sameyno mashruucaas oo sameyntiisa iyo muxuu ahaa softwarediisii imika gacanta lagu hayo shaqaalaha iyagiina dhaatadiisii iyo hawshiisii ay wadaan